السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وانا السلام عليكم استيلا مداوضة يا لي لهانتي من مركز جوجتان وعمر كلي برنامج كلو aynu ku baran doono qayb kamid ah cilmiga juqraafiga. Barnaamijkan oo aynu u bixinay barnaamijka barashada qaaradaha adduunka. Waxaana soo diyaariyay barnaamijkan anigoo ah Maxamed Cabdirashiid waxaana idin la socodsiin doonaa isla aniga oo shooca. inta aynaan bilaabin barnaamijkeena barashada qaaradaha adduunka waxaynu sirad dul taagi doonaa meeraha dhulka kaasoo ay ku yaalaan qaaradaha adduunka. Dhulku waa meeraha saddexaad ee meerayaasha cadceedda waana meeraha kaliya ee ay ka jirto nolol ama lagu noolaan karo. sidoo kale waa meeraha shanaad ee ugu xajmiga weyn leh 8 meer. Dhulka waxaa lagu naanaysaa meeraha midabka buluugga sababtoo ah marka hawada sare laga soo fiirinayo waxa muuqda midabka buluugga. Waxaa lagu qiyaasaa meeraha dhulka in da'diisu ku dhowdahay 4.5 milyan oo sano. dhulka isku wareegiisu waa 40,768 kilomitir square marka laga xisaabinayo dhul baraha. sidoo kale baaxadda guud ee oogada dhulku waa 510 milyan 270 kilomitir square taasoo ka kooban 140 milyan 940 kilomitir square carro iyo dhagax ah una dhiganta 9.2 goobada dhulka iyo 361 milyan 120 kilomitir square oo ah biyo iyo bad taasoo u dhiganta 7.8 goobada dhulka. heerkulka oogada sare ee dhulku waa meel dhexaad taasoo ah mid taageertay inay nolol ka jirto dhulka. kulka iyo qabowga dhulku waa uu kala duwan yahay iyadoo cilifyada bulariskoogu heerkul sareeyo taasoo ka dhigtay qabow badan. laakiin meelaha ku beegan dhulbaraha ayaa ugu heerkul sareeya dunida. marka ugu hooseeyo waxa uu gaadhaa -89.2 digrii. markuu dhexdhexaad yahayna waxa uu gaadhaa 15 digrii. marka ugu sareeyo kuleylku wuxuu gaadhaa 56.7 digrii. hawada sare ee dunida aynu ku nool nahay waxay ka samaysan tahay maadooyin fara badan waxaana ka mid ah qoryaha nitrogenka kaasoo ah 87.8. waxaa kaloo ka mid ah maadada oxygeenta taasoo gaadhaysa 20.5. waxaa kaloo ka mid ah iyaduna maadada argonka oo iyaduna gaadhaysa 0.93. waxaa kaloo isaguna ka mid ah carbon dioxide oo isaguna gaadhaya 0.93 iyo qiyaastii hal uumi oo biyo ah inkastoo mararka qaar kala duwan tahay cimiladu. meeraha dhulku wuxuu sameeyaa laba wareeg mid uu ku wareega xariijintiisa taas oo loo yaqaano side real rotation period oo ku qaadata waqti dhan 23 saacadood 56 daqiiqo iyo waliba 4.100 ilbiriqsi taasoo ku dhow 24 saacadood waxaana ka dhashay wareegga habeenka iyo maalinta. wareegga labaad dhulku waxa uu ku wareegaa qorraxda waxaanay ku qaadataa 365.744 oo ah waqti dhan hal sano. intaasi waa macluumaad kooban oo aynu ka baranay meelaha dhulka. haddaba aynu u nimaadno qaaradaha adduunka iyo inta dawladood ay ka kooban yihiin. waxaa jira 3 aragtiyood oo sheegaya qaaradaha caalamka. saddexdan oo kala ah aragtida koowaad waxa ay sheegaysaa inay qaaradaha adduunka yihiin 5 qaaradood. aragtida labaad iyana waxa ay sheegaysaa inay qaaradaha adduunka yihiin 6. halka aragtida u dambaysa uguna shacbiyada badani inay qaaradaha adduunka yihiin 7 qaaradood. waxaana u kala qaybisaa qaaradda Aasiya, qaaradda Afrika, Ameerikada Waqooyi, Ameerikada Koonfureed, Antarctica, Yurub iyo Australia. qaaradda ugu weyn uguna horeysa barnaamijkeenan ayaa noqon doonta qaaradda Aasiya. waxaan ka soo diyaarin doonaa barnaamij gaar ah waxaanay noqon doontaa qaaradda Aasiya barnaamij taxana ah waayo intaas oo dawladood ka kooban tahay hal barnaamij lagu soo koobi karo. barnaamijkeena maanta intaas ayuu ku yahay. inta aynu ku kulmi doono kanka ku xiga waxaan idinkaga tegayaa iskarifikaal kanaale idin caaniya micnaheedu waa channelka subscribe gareeya. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.